asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada muuqaalkan waxauu yahay mid aan kaga hadli doono kulanka finalka koobkii UEFA Champions League naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich kulan aan sahlanayn kulan final kulan fantastiga kulan caawa aan ku raaxaysan doono haddii uu Rabbi raali ka noqdo dabcan kulan aan ka hadlayno inuu yahay mid markaasi labaduba aan ka wada qoslin doono oo mid kaliya iyadu ay qosli doonto koobku ay qaadan doonto dabcan waxaan ka cudur daaranayaa si toos ah muuqaalna sameyn karin sabab kala duwan awood aad ma santiin waxaan ka codsanaynaa like inaad noo saartaan sababtoo muhiim ay inoo yahay mar walba muuqaaladiinu aad baan kaga mahadcelinaya si aad u daawataan laakiin waxaan ka codsanaynaa like muhiim ayuu inoo yahay gaar ahaan nidaamka cusub ee YouTube-ka haddaba marka laga hadlayo naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain iyo waliba naadiga Bayern Munich waxaan ka hadlaynaa laba kooxood oo mid iyadu 5 jeer ku guuleysatay isla markaana doonaysa naadiga kubadda cagta Bayern Munich markeedii lixaad inay ku guuleysato koobka UEFA Champions League iyo mid xitaa aan ku guuleysan hal jeer iska bada hal jeer markeedii ugu horeysay final koobkii UEFA Champions League isla markaana iyadu dhowr iyo markaasi 20 sano ay ka hor ayaa ugu dambeysay koox Faransiisa iyadoo inay ku guuleysto koobkan kadib Marseille ma jirin Monaco-dii ugu soo dhaweysay 2004 bay ahayd laakiin Porto ay koobka u waayeen iyo maslaxada Mourinho dabcan ciyaar adag ciyaar aan la saadaalin kareenin PSG iyo waliba naadiga kubadda cagta ee iyadu naadigan cajiibka ah Bayern Munich laba kooxood oo haysta weerar cajiiba xidigo aan sahlanayn macallimiin Jarmal u dhashay isla markaana xidigo cajiiba dabcan naadiga kubadda cagta PSG iyo qaabkay u ciyaari doonto ayaan ku hormari doonaa iyo waliba kulankan sidoo noqon doono marka laga hadlayo PSG marka aragtid naadiga kubadda cagta ee iyadu marka Atlanta qaabkay u ciyaartay waxa jiray mashaakil muuqda marka laga garan karayo afkaar ahaan qaabkay u ciyaarayaan marka lagu daro Leipzig inkastoo kulankii ugu dambeeyay wax badan ay xaliyeen dabcan mushkilada ugu weyn naadiga kubadda cagta ee PSG ka muuqatay waxay ahayd kulankii ugu horeeyay in xidiguhu ay isku dayeen in kaligood ay ciyaaraan macnaha waxay tahay Neymar shaqada uu qabtay laakiin marka la fiiriyo ma ahayn kulankii ugu dambeeyay Leipzig macnaha waxay ahaayeen xidiguhu kuwa si wada jira u shaqeynay in Mbappe uu isagu soo noqdo isla markaana Neymar bartamaha garoonka isagu u soo noqonayo xidiga qadka dhexe caawinayo in Herrera iyo waliba xidiga kale ee Marquinhos door cajiiba iyagu garahan xidiga marka Marquinhos oo ciyaar qurux badan ciyaaray macnaha waxay ku tusinaysaa in ninka la yiraahdo Tuchel si adag uu la dardaarmay xidigiisu isla markaana uu ku soo markaasi ka codsaday in shaqo adag ay qabtaan garoonka gudihiisa isla markaana aysan kaliya ku mashquulin xidig kaligii inuu gambiyo isla markaana uu socdo kaligii isagu ku mashquulin cagsigeedana ay u ciyaaraan nidaam wadareeda oo hala oo kooxda caawin karaya difaaciyan iyo weerar ahaan qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain xidiga cajiib ayaa jooga markaan ka hadlayno gaar ahaan naadiga kubadda cagta Bayern Munich marka ay doonayaan inay la ciyaaraan waxa muhiim ah inaad ogaatid in Bayern markan looga baahan yahay shaqo adag laakiin PSG markaan sharaxayno iyadoo hadafkeedu wuxuu yahay in ay u muhiimsan tahay in xidigahooda qadka dhexe hadii ay noqon lahayn Marquinhos Herrera Paredes iyo waliba xidiga Angel Di Maria maadaama afar labo iyagu lagu ciyaarayo inay noqon doonaan kuwa isku dhow isla markaana difaaca u dhow marka la fiiriyo xidiga Thiago Silva lagu daray xidiga Kimpembe dabcan Juan Bernat wuxuu isagu noqon doonaa xidig shaqo adag qaban doona oo difaaciyan in badan ku sugnaan doona sababtoo ah Bayern Munich waxay haystaan xidigo garbaha halisa sidaas daraadeed waxay u baahan yihiin naadiga kubadda cagta PSG in qaladaadka marka ugu horeysa ay iska ilaaliyaan gaar ahaan waqtiga cadaadiska ay ku jiraan waxay haystaan xidigaha marka Neymar iyo Mbappe waxay ka caawinayaan xidigaasi in kubadaha dhaadheer ay ku ciyaaraan sidoo kale iyagu ay noqdaan kuwa gadaal difaaca markaasi ay u dhow xidigaha qadka dhexe ee Herrera iyo Leo Marquinhos Paredes booskiisana laga yaabay Verratti isagu inuu ciyaaro maadaama isagu shaki la gelinayo laakiin kulankii ugu dambeeyay uu soo ciyaarno laakiin badal lagu soo geliyay sidoo kale naadiga kubadda cagta ee markaas iyadu PSG marka qaladaadka marka la fiiriyo waxa jira qaladaad inta badan ay ku dhacaan marka ay cadaadisku u saaran yahay sababtoo difaaciyan khalkhal ayaa ka muuqda ama ay markaasi galaan marka laga hadlayo dhibaatooyin fiirisanadihii la soo dhaafay markii Champions League ka baxayeen waxaanu aragnay mar walba in difaaciyan kareer wad ogeedeen sidoo kale xidigii kale marka Kimpembe waanu aragnay sanadkii hore kii ka horeeyay dhowr jeer ayaanu arkaynay laakiin sanadkan waxaad moodaa nooc ma
isku day inuu jiray laakiin hadana maaha qaladkaasi mid laga waayo oo PSG wili marka cadaadiska uu saaran yahay la tacaamulka qaladaadka waxa yihiin kuwa markaasi aysan ku wanaagsaneen dhowr jeerna aanu aragnay marka la fiiriyo Paris Saint-Germain. PSG shaxda ugu wanaagsan 4-4-2 ay noqon doontaa Herrera, Marquinhos iyo waliba ninka Verratti ama Paredes marka la eego door weyn ayaana markaasi iyagu ka saaran sidii ciyaarta uga xanibi lahaayeen xidiga Thiago Alcantara oo ah meesha ay ka neefsato ama wadnaha kooxda kubadda cagta Bayern Munich sababtoo marka uu kubadda dhisayo waxay yihiin kooxda kubadda cagta Bayern Munich kuwa aad iyo aad u halis badan sababtoo waxa uu yahay mid aragti dheer garoonka gudihiisa gees kasta oo xidigu joogo si fudud uu markaasi u arki karo waliba taabashadiisu waa saaxir waana markaasi kooxa dhowra waliba yaab ay leedahay Bayern lacagaha inta la eg xidig sidaas iyadu inay ku lumiyaan laacib saaxir oo cajiib Liverpool wax badan ka bedeli doona hadii uu yimaado inkastoo Saka Arsenal lagu sheegay hada marka sidoo kale naadiga kubadda cagta ee markaas iyadu PSG weerar ahaan marka difaaciyan aan ka hadalnay waa muhiim xidiga Kehrer ee dambeedka iyo waliba xidiga kale ee Juan Bernat in iyagu ay ahaadaan kuwa heegan ku jira 90 daqiiqo ee kulanka sababtoo ah Bayern waxay haystaan laba dambeed oo aad iyo aad u halis badan xidiga Kimmich iyo waliba xidiga kale ee marka cajiibka ee Alphonso Davies laba saaruuqa waliba sida garab oo kala leedahay maxaa yeelay way ku wanaagsan yihiin muwaajahada hal iyo hal oo xidig kaliya way ka taqalusi karaan marka la fiiriyo saas daraadeed waa inay caawiyaan xidigaha Di Maria iyo waliba xidiga kale ee Kylian Mbappe isla markaana soo noqoshadoodu aad bay muhiim u tahay hadii aysan soo noqon waxay tahay mid Bayern xitaa hadii way difaaciyan ay iyagu laazimaan isla markaana aysan intooda badan soo bixin xidigaha Juan Bernat oo iyagu laga rabo inay difaacdaan sidoo kalena weerara marka laga hadlayo laakiin kubadaha dhaadheer Navas ama xidiga Rico dabcan muhiim ayuu u ahaan doonaa ninka Rico la yiraahdo isagoo golaya in uu isagu isticmaalo kubadaha dhaadheer sababtoo waxay haystaa kooxda kubadda cagta PSG xidigo halis badan oo weerara gaar ahaan Kylian Mbappe iyo Di Maria oo aad iyo aad u degdegsiimo badan sidaas daraadeed waxay iyagu mar walba dhigi karaan weerar markaasi difaaciyada kooxda kubadda cagta Bayern gadaashoodu si fudud ayana marka ugu fududahay xidigaha weerarka marka la eego Mbappe iyo waliba Neymar iyo waliba Di Maria in muwaajahada hal iyo hal ay dhameystiraan markaana goolhayo si qurux badan kubadda uga dulqaadaan qaabkaasi waa qaabka kooxda kubadda cagta ee PSG aanu arki kareyno iyagu inay ku ciyaaraan macnaha waxay tahay kubaddu waxa la siinayaa Bayern Munich iyagu difaaciyan waa inay laazimaan ama mar walba iyagu dhinaca ugu wanaagsan la dhihi karayo Bayern waxaanu ka hadlaynaa kooxan sahlanay marka la eego naadiga kubadda cagta ee Barcelona 8 gool ka soo dhalisay labada kulan marka la fiiriyo Chelsea wixii ay ku dhigtay 7 gool waa la ogaa Barca kulankeedii waa soo gaabiyeen wixii laba kulan lagu qaadan lahaa kulan bay ku soo koobeen kulankii dambe Leipzig waad aragteen waa kooxda kubadda cagta Lyon bay iyagu ka dhaliyeen 3 gool hadaba waxa soo idil waxay ahaayeen waxyaabo muujinayay in naadiga kubadda cagta Bayern ay leedahay weerar halis badan laakiin ogsoono naadiga kubadda cagta ee Bayern Munich marka la fiiriyo PSG waa masahlana kulankoodu ma dhigi kartid Barcelona marka aan ka hadlayno kulankeedu dabcan Barcelona hadda waxa ka muuqda in PSG ay tahay mid aad iyo aad u kala fog sababtoo xidigaha Barcelona ma aha kuwa orod badan isla markaana inta badan kulamada sidaas iyo aad bay ugu dhibaatoodaan kooxaha marka inta badan ciyaarta cadaadiya oo markaasi orodka dhanka iyagu ku riixa waxay yihiin kooxdu mid daal fara badan ka muuqdo sabab ku aadan daada iyo xidigaha intooda badan oo ah duqowsho sidaas daraadeed naadiga kubadda cagta Bayern Munich waa inay ka taxadirtaa difaaca markaasi bartamaha garoonka imanayo dadka intooda badan way ka digayaan difaaca bartamaha garoonka kubadda ka ciyaara ama difaaca soo horeeya ee difaaca iyo waliba markaasi goolhayaha oo u dhaxayso marka masaaxo aad iyo aad u weyn waxaad aragteen kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich in difaaceedu aad u fudud yahay tusaale Lyon fursadihii ay heleen hadii qaybta hore labada gool ay dhalinayeen ciyaartu wiji kala bay yeelan lahayd sidoo kale kubadii Memphis Depay oo muhiim u ahayd isagu lumiyay sidoo kale laakiin ha ka tagin Manuel Neuer xidig cajiiba ninkan mar walba wuxuu inoo muujinayaa isagu inuu mudan yahay goolhayaha koowaad ee xulka sababtoo ah waqti fiican buu ku jira waa sax waqtiyo xun isagu in markaasi uu qaatay Manuel Neuer aan isagu hadda waxa la maraya waqtigii la tijaabin lahaa ninka la yiraahdo Stegen laakiin Stegen wali waxa noo muuqanaysa inuu la tartami karo ninka la yiraahdo Manuel Neuer ku aadam muwaajahada hal iyo hal markay sheekadu tahay kubado badan ayuu badbaadinaya hadda marka
Bayern Munich xidigaha markaasi difaacyada markaanu ka hadlayno xidiga Nicolas Sule ayaa la filayaa isagu in kulankan fursad uu helo sababtoo ah kulankii ugu dambeeyay nadiga kubadda cagta Lyon fursad buu isagu markaasi helay isla markaana Botin way adag tahay inuu wajaho xidiga Mbappe iyo waliba ninka kale Neymar Jr sidaas daraadeed ninka macallin Felix isagu fursad buu siin doonaa isla markaana uu ciyaari doonaa marka la eego xidiga cajiibka ee isagu Nicolas Sule isla markaana waqtiyadii ugu dambeeyay dhaawac isagu marka la kulmay ima xidiga kale marka alaba wuxuu yahay mid markaasi ciyaari doona isaguna laakiin ma sahlanaan doonto shaqo adag ayaa laga sugayaa Mbappe iyo Neymar ayuu wajihi doonaa sidoo kale nadiga kubadda cagta ee Bayern Munich markaan rabnaan ka sheekeyno qadkeeda dhexe waa muhiim inay iska ilaaliyaan iyagu in kubadda ay kulmiyaan bartamaha garoonka waan ogahay xidig saaxir oo Alcantara inay haystaan laakiin Alcantara marka la celiyo waxay yihiin mid kooxdu dhibaatoonaysa sidoo kale ogsoono Goretzka iyo Alcantara waxay yihiin kuwa aad iyo aad uga halis badan marka laga hadlayo weerar ahaan dhisidooda iyo waliba gaar ahaan xidiga Alcantara oo saaxira markaasi gambiska ku fiican kubadda wareejinteeda iyo waliba aragtidiisu dhan walba uu ku fiican yahay laakiin markaan rabnaa isagu xidig sidaas oo kale inaan ka hadalno waa muhiim inaan qiimeeyno sidoo kale difaaciyan in aad loo dhaliilayo Goretzka iyo waliba Alcantara oo labaduba marka hore aan ahayn xidigo burburiyaala isla markaana iyagu aan booskaasi markii hore loo abuurin boos kala duwan iyagu ay ka ciyaari jireen laakiin waxaan ognahay in ay awood u leeyihiin in kooxda ay caawiyaan sidoo kale Bayern goormay halis badan tahay Bayern waxay halis badan tahay marka Müller iyo waliba Lewandowski ay soo noqdaan isla markaana xidigaha qadka dhexe kooxda kubadda cagta PSG dhexdoodu iyagu yimaadaan macnaha waxay siinayaan marka ugu horeysa in tirabadni iyagu helaan oo xidigaha laga tirabadiyo sidoo kale waxay awood dheeraad siinaysaa marka la fiiriyo xidigaha Lewandowski Müller soo noqoshadiisu xidiga Gnabry ka taas oo aanu aragnay mar walba oo Gnabry isagu marka soo muuqanayo waa Lewandowski iyo waliba Müller oo iyadu kooxda laga xanibay taa waxay keentay marka xidigan isagu inaan aragno kulamadii ugu dambeeyay gaar ahaan Bayern sanadii la soo dhaafay waxay ahayd mid ay dhibaatoon jirtay marka Lewandowski waayo Lewandowski marka ay Real Madrid iyadoo ay ku hor dhibaatoon jirtay Bayern Lewandowski marka la waayo kooxda xal kale ma lahayn jirin laakiin xilliyeedkan waxaanu arkaynaa marka Lewandowski la waayo marka Müller la waayo xidiga Gnabry waa xaadir Gnabry kulan kasta isagu waa soo muuqanaya kulankii ugu dambeeyay goolka isaga ayaa furay waana pointiga ciyaartu iska bedeshay isla markaana meesha kooxda kubadda cagta ee iyadoo marka Bayern Munich awood u yeelatay in ciyaarta ay ku sii jirto isla markaan waxa aragtay sameeyaan Kimmich iyo waliba markaas xidiga kale Alphonso Davies waxa diga weerar cajiib ah laakiin marka laga hadlayo difaaciyan aad baa loo dhaliilaya sababtoo marka iyagu halka tagaan soo noqoshadoodu aad baa markaas iyagu loo dhaliilaya waana aragnay marka in marka dhowr jeer kooxda kubadda cagta Lyon iyadu ay gaartay goosha kooxda kubadda cagta ee iyadu marka Bayern Munich marka Bayern kulamadii ugu dambeysay uu ciyaartay uma ciyaari karayso iyaduba waa inay ciyaarta kubad miisaaman kubad ay markaas ka faa'iideystaan fursad ay helaan cagsigeeda marka la fiiriyo kooxda kubadda cagta PSG fursadaha ay helaan inta badan kama faa'iideystaan xasuuso kulankii Atlanta Neymar imisabu helay ninka Mbappe imisabu helay marka la fiiriyo taa waxay tahay mid markaas halis ku ah kooxda kubadda cagta PSG sababtoo ah fursad barkeed hadii aad heshid waa inaad ka faa'iideystaan maxaa yeelay kuguma naxariisanayaan Bayern Munich waxaan ognahay wixii Jarmalka ay ku soo dhigeen waxaan ognahay wixii ay ku soo dhigeen markaas Brazil wixii markaas Jarmalku uu ku dhigay Brazil iyo wixii ay ku dhigeen Bayern markaas Barcelona oo Jarmal makiinadaha ma naxariistaan marka fursad ay kugu helaan barkeed waa dhalinayaan marka maalintooda ay tahay PSG marka mushkilada ay iska ilaalin karaan waxay tahay in ay lumiyaan fursado badan laakiin mushkiladu way jiraan labada dhinac hadii ay noqon lahayd nadiga kubadda cagta ee PSG oo khalkhalka marka la fiiriyo iyo mashaakilaad kale oo fursadaha lumintoodu iyo xidigaha oo markaas iyagu isku dayaya in ay kaligood ciyaaraan macnaha Mbappe iyo waliba xidigaasi inay soo bandhigaan xirfadooda tayadooda kulamada sidaana laakiin waa muhiim ciyaar wadareed marka xidigaha in fursada loo wada faa'iideeyo dhamaan sidii kooxdu guuleysan lahaydna laga shaqeeyo xidig kastana doorkiisa difaac uu soo muujiyo marka kooxdu kubadda la'aan ay tahay isla markaana ay ku soo noqdaan PSG garoonkooda cagsigeeda kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waa inay ka taxadartaa difaacan soo horeeya isla markaana ciyaartan furan taasoo keeni karaysa in ciyaarta markaas iyadu waji kala yeelato nadiga kubadda cagta Chelsea nadiga kubadda cagta Barcelona xitaa Lyon dhammaan waxaanu arkaynay kooxda kubadda cagta Bayern Munich iyadu inay ahayd goolasha inay ku hormarayeen hadda waxa isweydiin mudan marka iyadu gool laga dhaliyo Bayern Munich sidee iyadu noqonaysa maxaa yeelay kulamadii ugu dambeeyay waxaanu arkaynay kooxdu iyadu inay dhalinayeen mar labaad dhalinayeen saddexaad dhalinayeen inaysan joogsanin laakiin marka iyagu gool laga dhaliyo wajiga qaabka uu noqon doono nadiga kubadda cagta markaas PSG lafsadoodu iyagu kulamada ay soo ciyaareen marka la fiiriyo Leipzig
marka laga hadlayo kulamadii kale iyadoo xilliyaare Atlanta iyo waliba markaas heerka guruubyada marka adeegtadii kooxihii kale ka soo taqalusan macnaha kulan imtixaan weyn oo Bayern Munich oo kala Bayern Barca ay ka soo taqalustay marka la fiiriyo kooxan saalnayn Real Madrid ay markaas iyadoo PSG kula soo ciyaareen laakiin waa guruubyada waan ogahay laakiin kulan knock out marka la fiiriyo sidee bay noqon doontaa marka PSG iyadoo kulanka ula tacaamuli doonta waa la isweydiinaya iyaduna Lewandowski wuxuu doonayaa rikoorka cajiibka marka ninka la yiraahdo Ronaldo isaguna soo gabagabeeyo 15 gool buu leeyahay xiliyaareed isagu cajiib marka waan arki doonaa aniga saadaalinteedu dabcan ciyaarta 2 gool inay ku dhamaan kartaa ila tahay Bayern Munich koobka ay ku guuleysan karaan laakiin saadaalinteedu muhiim maaha oo waxa muhiim ah oo boqorka saadaalinta adigan idaawanaya maxay ila like-taadu waa muhiim makiinada YouTube kana inay yaabto la doonayo like nagu qabo sina share gare mahadsanid